waxay yidhahdaan dhallinyaro badan ba hadda Facebook iyo waxa la midi waaleen waayo mid baa photoshop intuu galo oo gacantiisa wax ku sifeeyo ayuu odhanaya halkaasaan joogaa markaasuu kanaan halkaa joogin niyad jabaya kanna waa been meeshuu sheegayaa waagii hore waxay yidhaahdaan qofku notebookisa waxa uu qorto sir bay ahaan jirtay mudakaraadkiisa iyo wuxuu rabi jiray markuu dhinta iyo meelaha in la akhriyo iminkana qofku wax kasta u qoro intuu meesha ku soo dhigo like ma layma saarin buu leeyahay lama akhrinin yani nolosha wixii lagu qiimaynayay baa isbedelay dadku wada mashquulsan yahay wuxuu ku mashquulsan yahay qurux wax la yidhaahdo qof isqurxiyey gabadh isqurxisay quruxdii dunida loo lamayo nimanka gaalada agtooda maanta shooyaal la qabtaa laleeyahay rida dunida u qurux badan markaasaa niman soo fadhiisanayaan oo sifaynayaan indhaheedu say u eg yihiin afkeedu siduu eg waa ri yani waa markay noloshu wixii wax lagu qiimaynayay uu lumo dadku maanta maxaad ismarisay iyo maxaad xidhatay iyo maxaad kriimkaad soo isticmaashay iyo baraandkeebaad xidhan tahay maryahaaga ma Nike ba mise waa heblaaye mise waa Puma waxa laga fakarayaa muuqaalka iyo jirkaagu siduu u dhisay iyo midabkaagu siduu u eg yahay waxa dunida hogaaminaya wuxuu filosofkii Faransiiska ku tilmaamaya nidaam التفاهة فرانسيسو فيلسوفا كنديان ودشay ayaa kitaab qoray la yiraahdo nidaam التفاهة nidaamka liidashada wax la'aanta yani dunida dad maran ba hogaaminaya buu leeyahay waa nidaam maran taafihi waa shayga xaqiirka ah waa nidaam xaqiiro liita nidaamkani wuxuu lumiyay markaa dadnimadu maxay tahay waxa wax lagu qiimeeyaa wuxuu dadka u raray in madaahirta muuqaalka in wax lagu qiimeeyo noloshu muuqaalka maaha sidaad u eg tahay maaha inaad madowday inaad caddahay inaad fool xuntahay inaad fool xumayn ma aha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rubba ashcaf madfuucin bilabwaabi law aqsama cala allahi la abara rubba ashcaf la arkay ama badana ama yaraka doontaba dhoo mid ashcafa mid basaasaysan aan feedhnayn oo madfuucun bilabwaaba albaabada mid laga celiya ah aan manaasib iyo magac iyo muuqaal weyn iyo waxay dadku qiimeeyaan aan wadanin laakiin ilaahay agtiisa maxay ka ah law aqsama cala allahi la abara ilaahay hadduu ku dhaarto hadduu yidhaahdo wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay uu rumeeyo siduu u dhaartay looga dhigo u fiirso qof markuu dhaarto ilaahay uu rumaynayo dhaartiisa oo sidii ay noqonayso ilaahay agtiisa qiimuhu ku leeyahay intuu leegyahay laakiin cinda annaas wuxuu nabigu ku tilmaamaya inuu yahay madfuucun bilabwaab albaabada mid aan laga furin mujtamacii muslimkee hore aragtiday nolosha ka qabeen markay kaa ahayd bay xadaaro dunida keeneen markaasay horumar keeneen markaasay dunida hormood ka noqdeen markay ku dhaqmayeen inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay muuqaalkiinna ma eegiyo maalkiinna toona taasi alla agtiisa waxba kama aha kan foosha xunlaya kan quruxda badan waxa oo dhan waa sancadii ilaahay midna adugu maad samaynin marka sidaa u egtiin xoolahanina waa xoolihii ilaahay aad dunida ugu timi cirka kamaad keenin adugu meel cusub kamay soo bixin meelahan umaad ka soo ururisay waxaad xoola haysataan iyo muuqaalkaa leedihiin ilaahay agtiisa waxba kama aha buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay se muxuu eegaa agtiisa qiimo ku leh quluubta waxa ku jira caqiide iyo iimaana iyo ilaahay weynayntiisa ah aliimaanu billahi wa bilyawmi alaakhir quluubtiinna waxa ku jira iyo dhaqankiinna waxa idinka soo fulaya acmaala walidaalik وأنس بن مالك وحليه وحجري جري صحابة نين كمدها ولورن جري زاهر صحابي كان زاهر ليلة هذا زاهر بن الحرام فهذا ليلة ننادو فالحن أركا قروح ضي واحد بنادم كوي شاقان ننادو فالحن بوها وررمية
nabiga calayhi salaatu wasalaam buu baadiyaha intuu ka yimaado hadiyad u keeni jiray nebiguna magaaladu ka sii taakulan jiray oo ka diri jiray walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina zaahiran baadiyatuna wa naxnu xaadiruun zaahir waa reer miyigayagii annaguna waxaanu nahay reer magaalkiisii buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka miduu zaahir magaalada yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam hadiyadu keenay isagoo wixii uu sitay suuqa ku iibinayo suuqii wax lagu kala iibsanayay jooga ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi isagoo sii jeeda buu sidaa u qabtay nebigu waanu sii jeedaa ninka reer miyigii markaa wuxuu yidhi war isiida waa kuma ma arko markaa ciddan haysa ee xagga dambe ka haysa arki kari maayo isiiddaa markuu ku celiyey isagoo aan arkaynin arsilni uu leeyahay ayuu hoosta ka jalleecay dabeetana wuxuu arkay inuu nebigi yahay calayhi salaatu wasalaam markuu gartay inuu nebi maxamed yahay buu isku nabay markii hore isiiddaa buu lahaa laakiin markuu ogaaday inuu nebigii yahay ayuu isku nabay nebigu isagoo kaftamaya markaasi waa kaftami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa yaquulu ila alxaq waxaan xaq ahayna kuma kaftami jirin isagoo haya buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabd war addoonkan yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahy suuqii bay dhex taagan yihiin xagga dambuu ka hayaa waa addoon ilaahay dadkao dhami nebigu intuu qabtay buu wuxuu yidhi man yashtari hada alcabd addoonkan yaa iibsanaya zaahir baa nebiga u jawaabay markaa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi idan wallaahi tajidunii kaasida ilaahay rasuulkiisiiyo wallaan ku dhaartay waa kugu baariyayaa buu yidhi maxaad tidhahdaan alaabta marka suuqa lagaa iibsan waayo way baarixyowday ama way baariday ama way ku dhacday ama waa igu fadhiisatay waxaasay dadku yidhahaan soo maaha alaabaan keeno waa igu fadhiisatay waa kaa bixi weyday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ilaahay baa ku dhaartay haddaad aniga suuqi geyso waan kaasid baan kugu noqonayaa buu leeyay waa kugu baariyayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu jawaabo wuxuu ku yidhi laakiin cinda allaahi lasta bikaasid ilaahay agtiisa mid kaasida ma ku tihid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid ku qiimo liita ma tihid buu leeyay riwaayaadka qaarkoodna anta cinda allaahi qaalib buu yidhi ilaahay agtiisa qaali baad ku tahay qiimaad ku leedahay xadiidku shamaa'il almuxamadiya ayuu ku qoray waana xadiis saxiixa muxuu tilmaamaya xadiidkani inaanu muuqaalka qofka bini aadamka qiimiisu ahayn idan ayuha alaxiba almacruur ibnu suwayd ninka la yidhahdaa wuxuu leeyahy waxaan la kulmay saxaabigii la odhan jiray abaadar oo rabada tuulo yaroo u dhow madiino deggan oo isaga iyo nin u shaqaynaya midba xulla xidhan yahay xulladu waa isku joog riwaayaadka qaarkoodna waxay idhaahdaan xulluu kala qaybiyo kanna qayb buu xidhnaa markaasuu ninkii wuxuu leeyahay maad isku joogga adigu isku xidhatid ninkan shaqaalaha intaad nus siinayso calaa kulli xaal meesha waxaa ka muuqata abudar iyo ninkii u shaqaynaya oo isku marya sita innagu dee shaqaaluhu waa miskiin yar baynu ka dhignaa hayl iyo xidhan ninka gurigalena wuu xaragoonaya laakiin abudar isaga iyo shaqaalihiisa baa isku wax xidhan dabeetana su'aal baa la weydiiyey maxaa dhacay baa la yidhi adiga iyo ninkii kuu shaqaalaha laydima kala garan maayo isku marya sidataane abudar baa ka jawaabo wuxuu yidhi nin baanu beri ismaagnoo aan caaye dabeetana hooyadii baa ku caaye waxyo hooyada madoobe dhashay baa ku yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa abaadar acyartahu biummi waar abudarow ninkan ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka mra'un fiika jaahiliya buu nebigu ku yidhi waxaad tahay nin weli dhaqamadii jaahiliyada wax ka haysta halkii lagula rabay maad soo gaadhin buu nebigu abudar markaa u tilmaamayey miisaankaad wax ku qiimaynaysaa weli madow iyo caddaan iyo xoolo iyo waxa kana waxaan ilaahay agtiisa wax lagaga qiimaynin sida daraaddeed buu nebigu wuxuu ku leeyahy innaka mra'un fiika jaahiliya waxaa weli kugu sugan wixii qabla alislaam dadku ku dhaqmayeen wax ka mida war dadkani buu nebigu ku leeyay ikhwaanukum khawalakum jacalahum allahu taxta aydiikum waa walaaladiinoo ilaahay gacantiinna soo geliyey
ninkii walaalkii uu la joogo shaqaale u yahayow falyuطcimhu mima ya'kul waliyulbishu mima yalbas war waxaad cunayso wax ka mida isna sii hambada ha siine waxaad cunayso wax ka sii waxaad xidhantayna wax ka huwi waxaanay awoodi karinna ha ku kallifin haddaad waxaanay qaban karayn inuu dirtana aduguna la qabo nebigaa sidaa igu yidhi buu yidhi xadiiska bukhaariyo muslimka ku yaalla idan waxaan leenahay miisaanka wax lagu qiimaynayo ma aha madaahirta kaa muuqata maradaad xidhan tahay iyo sida muuqaalkoogu u eg yahay iyo gurigaad ka soo toostay intuu leeg yahay iyo waxaad qiyaastaa nebi maxamed oo gurigu ku tukanaya uu ku jiray isagiiyo xaaskiisu ay ku jireen markuu sujuudayo oo cagta ka qajidhanaya cagaa ka laabanayso waa meel aan laba qof wada mid tukanaya iyo mid hurda wada qaadin ayay u muuqataa innaga qol fadhaa la yidhaahdaa mid hurdaa la yidhaahdaa mid soogal baa la yidhaahdaa mid waa lagu qubaystaa mid waa lagu waxaa laga yaabaa ka innaga musqushaynoo ah inuu ka weynaa guryihii saxaabada haddana kuwaasay ahaayeen kuwii dunida wax ka beddelay sida awgeed miisaanka dadka lagu qiimeeya ama nolosha lagu qiimeeyo ma aha inta aad adduun iyo xoola haysato su'aal labaadaan keeno saxaabi baa jiray julaybiib la yidhaahdo julaybiib waa tasghiiru jilbaab julaybiib waxay yidhaahdaan nin gaaban oo fool xun waan xoola haysan buu ahaa yacni wixii dadku ay wax ku qiimaynayaan qurux male dharar ninna le ma aha hanti nin haysta ma aha saasay ku sifeeyaan julaybiibkii nooca ahaa buu nebigu ku yidhi war maad guursatid julaybiiba maad guursatid markaasuu yidhi oo yaa aniga gabadhi siinaya yaa gabadhi siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine saxaabada joogtay cid waliba waxay jeclayd inuu nebiga la xidido oo gabdhaha reeraha soo koray nin waliba wuxuu jeclaa inuu nebiga kula xidido dabeetana reer ansaartii ka mida buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin yaa fulaan zawijnii ibnatak hebelow inantaada ii guuri ama inantaada isii haddaynu tacbiirkeenna inagu isticmaalno inantaada isii buu ku yidhi wuu farxay ninkii nebi maxamed oo gabadhku weydiistay nacam wa nucmaa caynin buu yidhi haa yani waa ku siinaya waaba nucmaa cayn waa mid ili ku doogsato in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xididnimadiisa aad hesho dabeetana nebigu ninkii wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigu naftayda u dooni maaya buu yidhi nebigu alayh salatu gabadha waa kaa doonaya laakiin anigu ma ihi qofka naftiisa u doonaya qaala faliman oo haddaa ilaahay rasuulkiisiiyo yaad la rabtaa buu ku yidhi qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baana inanta u doonaya ninkii markaasuu dib uu yaro fadhiista dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow debel inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed aan la tashado inanta hooyadeed baa loo tegey wuxuu ku yidhi nebi maxamed baa inantii inaga soo dooray iyana sidii si leg bay tidhi nacam wa nucmaa cayn markaasuu yidhi lafihiisa u dooni maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay tidhi faliman yuriiduhaa haddaa inanta yuu inoo weydiinaya waxaa lagu yidhi wuxuu inanta u doonayaa lijulaybiib ninkii julaybiib la odhan jiray ayaa gabadha loo doonaya islaantii waxay bilowday xalqaa bay tidhi xalqa waa min xalqa waa xiristi waa ba'ayay oo kale iyo jabayay iyo hoogayay dad soomaalidu tidhaahdoo kale weeyaan islaantii waa waraanay iyadu filayninba ali julaybiibin bay markaa ku xigsiisay ba'ayay iyo ma julaybiib baaba maanta la ii wadaabay islaamtu leeday waaba dhaaratay laa lacamrullaahi laa uzawiju julaybiiban ilaahay baan ku dhaartay julaybiib anuu gabadh iska siin maaya bay islaantii u booday odaygii dee islaanta warkeedii arega markuu isidhi kac ayaa gabadhii hadashay oo xagga dambe fadhida hadasho waxay tidhi man khatabanii ilaykuma
ooyo yaa ikiin weydiistay waxaa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku tidhi ma ilaahay rasuulkiisa warkiisaa celinaysaa inta nebi maxamed idin yidhi gabadhi siiya ayaa odhan doontaan ku siin mayno idinku nebiga igu wareejiya waxaan hubaa inaanu nebi maxamed ay dayacayn bay tidhi idfacunii ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam fainnahu lan yudayicanii nebiga igu wareejiya bay tidhi nebigu i dayici maaye odaygii iyo islaantiiba inanta warkeedii waa ka farxiyo waa aqbaleen dabeetana nebigii buu u tagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiiba gabadhii waa ku siinay ilaahay rasuulkiisiyo wey u guuri julaybiib iyo ciddii aad doonaysaba nebigu calayhi salaatu wasalaam julaybiib buu gabadhii u guuriyey riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu duceeyey wakhti yar kadib baa dagaal dhacay dagaalkii bay muslimiintu galeen dabeetana waa la islaayey dad muslimiina baa la dilay markii dagaalkii dhammaaday ee cid weliba meydkeedii urursanaysa iyo dadkii maqnaa la tirinayo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tafquduuna min axad waar cidnama idinka maqan tahay waa la isbaadhbaadho kolba hebel baa maqan hebel baa markii dambe waxa la yidhi cidima maqna reerihii magaca lahaa dee raggoodun baabay tiriyeen dabeetana waxaa la yidhi cidima maqna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa lakinnii afqidu julaybiiban war anigu julaybiib baan la ahay buu nebigu yidhi ninkani ilaahay rasuulkiisa qiimahaasu ku ag lahaa inuu u guuriyey maantana marka la dad tirsanaya yaa geeriyooday reer waliba leeya waanu joogaa raggayagii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay anigu julaybiib baan la ahay ee fatlubuuhu fi lqatla bal dadka la dilay ka baadi doona julaybiib baa la baadi doonay waxaa la helay isagoo isna dhintay oo la dilay 7 gaalna ay ag yaalliin 7 u dilay markaasay iyana dileen aakhirkii aqatala 7 ثم qataluuhu haada minii wa ana minhu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma 7 dilay markaasay dileen buu nebigu yidhi kaasi haada minii wa ana minhu buu nebigu leeyahay kaasi anuu iga tirsan yahay anna isagaa ka tirsanay kaasuu nebigu tirsanayaa uu leeyahy isku koox baanu nay waa fool xun yahiyo waa gaaban yahay iyo hanti mala iyo nebiga hagtiisa waxaasi maha wuxuu ragga ku qiimaynaya raggu tirsanayo ee uu baadi goobayo muuqaalkoodu siduu u ekaa iyo gaabnidoodu intay leekayd iyo hantiday haysteen intay leekayd maaha wuxuu wax ku qiimaynayay u fiirso ninka nebi maxamed ku leeyahay haada minii wa ana minhu 7 jeer buu ku celceliyey bay riwaayaadka qaarkood leeyihin dabeetana madaxuu gacmihiisa u dhigay intii laga aasayey nebi maxamed baa madaxiisa hayay sariir kale iyo rarab kaloo loo dhigay ma jirin ee gacmaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu hayay intii godka loo qodayey ee la aasayay oo dhan ilaa uu qabriga ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam